إن الله وإنا إليه راجعون إن الله وإنا إليه راجعون waxa meesha ka dhacay waxay ahaayeen wax argagax leh oo musiibo ah oo filaweyn ugu noqday qofkii kooxaha argagixisada ah ayaa qof naftii haliga ah waxa uu isku qarxiyey afaafka hore ee madaxtooyada beledweyne oo runtii markaa ay socdeen xildhibaan aamane maxamed cabdi iyo qaar kale oo ka mid ah ilaaladeeda iyo xildhibaan hore cali cabdi dhuxul oo musharax xildhibaan la ahaa ayaa runtii qarx ugu haleelay allaha u naxariisto xildhibaan aamine ninkii la socotay iyo xildhibaankii hore intaba markii qaraxa uu dhacana runtii waxa ay noqotay weliba qaraxa waxa layaaqi karaysan ahayd oo wuxuu ahaa qarax aad u xoogan oo mataqaanaa dadkii meesha kaagdega xataa xooga aad moodo in qaabka ay wax u dhaceen xataa ay fasiri waayeen kuley ciidamadii ayaa meesha ku qoomay oo mataqaanaa xabadaha meesha ka dhacay oo la dilay sababtoo ah wax meesha ka dhacaa wax yar ma ahayd kadibna waxaa la xaqiijiyay xildhibaanadu ay dhimatay allah u naxariisto xildhibaanka horena ay dhintay qaar ciidamadeeda kamid ahaa inta dhaawacsana gaariyaa la saaray isbitaalada la geliyey marka laakiin waxaan ku xaqiijinayaa xildhibaanada meelahaasi in caawa si alle ee u timid waqtigeedana adduunka ay ku lahaydna waayahay sidaa sheegtayba xildhibaanad aamine ayaa ku geeriyootay ee qaraxaas ismidaaminta ah qarax markuu dhacay kadib waxaa lasoo sheegay in qaraxyo kale ay magaalada ka dhaceen oo iyaguna khasaare kala duwan geystay kuwaasi maxaad nooga sheegi kartaa iyaguna khasaaraha ilaa iminka ay geysteen qaraxa kale wuxuu ahaa madaxtooyada uu ka fogaa oo banaanka uu ahaa qofka nidaamiye ah ayaa waxa uu isku dhigay baabuurkii dadkii dhaawacyada ah qaaday iyo isla wadada uu istaago isku qarxiyey inkastoo maxaa la dhahaye khasaaraha ka dhashayna badnaayeen haddana dadkii dhaawacmay oo dhan dadkii dhintay isbitaalada la geeyey kala guud baa kusugeynaa laakiin xildhibaan aamine iyo xildhibaan hore ayaa goobta afaafka hore madaxtooyada iyo ilaalada la socotaba ku geeriyey marka hadda waa laba xildhibaan inta geeriyootay inta hadda geeriyootay waa laba xildhibaan miya xildhibaan aamine maxamed cabdi oo kursiga ku fadhiyay iyo xildhibaan hore xildhibaan dhuxul allaha u naxariisto labadaas ayaa madaxtooyada afaafkeeda hore ku geeriyootay oo mataqaanaa la xaqiijiyey waaya xilliga marka xildhibaan aamina qarax lala beegsanayay ma doorashaday ka qaybgelaysay halkay ku sugnayd waxay ahayd doorashada kursiga labaada maanta caawa la dooranayay maanta laba kursiga qorsho ahayd mid kamid waqtigiisu aada ugu dheeraaday oo isku dawareegsada howlgalay midka xiga kii ugu dambeeyey ayaa la dooranayay ergooyinkana gudahay ku jireen xildhibaanaduna gudiga ay degneed oo madaxtooyada ku dhignaa beledweyne ayay degneed waa ay kasoo baxaysay meel dhexe ayuu qaraxa ku haleelay oo qofka isnidaamiyaha ah ayaa mataqaanaa eriyada uu ka dhacay eriyada ay soo marayso ayuu qaraxa uu ku socday waaya kuley qadarka ilaahay ayaa ku dhacday waxaan rajeynayaa insha allahu adaa amnigana tafaasiilka waxaa ka keeni doonaan qaabka waxay u dhaceen waaya daawud dabcan beledweyne hadda doorasha ka socota waxaa la isweydiinayaa magaaladaas oo ergooyin badan iyo musharaxiin badan ay ku sugan yihiin oo magaalo doorasha ka socota in qaraxyada noocan oo kale ay ka dhacaan iyadoona ciidamada ammaanka qaybahooda kala duwan ay ku sugan yihiin sidee marka al-shabaab sida sheegtayba qaraxan oo ka dambeeyaan ugu suurta gashay in qaraxyo noocan oo kale ay ka geystaan iyadoo doorasho magaalada ay ka socoto waa mahadsan tahay beledweyne 4 iyo 20 kursiyaa taalo caawada kula hadlaayana waxaa ku hartay 6 kursi oo kamid ah oo kursiga kalena u ahaa inuu dhaco laakiin uu dhici waayey maadaama farka caawa ku dhacay intaas umaysan suuragelin in qaraxyo ay meesha ka sameeyaan insha allahu tacaala kulley hadda waxa meesha ka dhacayna waxaan anagu aynaa qof naftiimaliga ah oo fursad helay qaabka meesha uu ku talgeli lahaa isku qarxiyey laakiin waxaan aaminsanahay annaga ka dowladgol ahaan cadeynaynaa in kooxaha argagixisada gacanta kaga qabanayna gacanta kalena doorashada ku qabsanayna insha allah wixii dhacana runtii waxay ahaayeen wax runtii argagax lagu reebay hay-adaha amnigana waxaa laga sugayaa buuxda oo ah qafka ay wax u dhaceen waana wala xisaabtamayaa hadduu ilaahiya aad iyo aad u mahadsan tahay daawud xaji cere ayuu kaasi ahaa afhayeenka hirshabeelle oo qadka si toos ugu jiray